munaasabad ballaaran oo loogu talagalay in si rasmi ah loogu wareejiyo dekedda berbera shirkadda DP World ee laga leeyahay waddanka Imaaraadka ayaa waxaa ka soo qayb galay madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland Axmed Maxamed Maxamuud Silaanyo, gudoomiyaha xisbiga muxaafidka ah ee Kulmiye, gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ah ee UCID, marwada koobaad ee madaxweynaha Somaliland, mabnaha golaha wasiirada ee Somaliland, taliyayaasha ciidamada qalabka sida, safiirada Somaliland u fadhiya wadamada Itoobiya, Imaaraadka iyo Djibouti, iyo safiir ku-xigeenka Ruushka u fadhiya waddanka Djibouti iyo wasiir ku-xigeenka socday dawladda aynu jaarka nahay ee Itoobiya. Ugu horeyna waxa halkaasi ka hadlay gudoomiyaha shirkadda DP World Sultan Ahmed bin Sulaiman oo ka hadlay ahmiyadda uu leeyahay heshiiska dekedda berbera iyo xiriirka Somaliland iyo Imaaraadka ee ay xudunta u tahay heshiiskani. Waxaanu sidoo kale ka hadlay suuqa xorta ama free zone-ka oo uu tilmaamay in shirkadihii maalgashan lahaa qaarkood ay haatan la socdaan. We are today 78 terminals around the world. The world is growing. Trade is going to be your revenue. Trade activities is what's going to make Berbera even more important. We are discussing the free zone and on the recommendation of the government, based on what they select, we will develop a land. Already, one or two of these investors decided to invest in Berbera. Already today, we spoke in the plane, they said we are, and one of them is raising his hand. Allah, we will work together. I am committed to Berbera, committed to the people of Berbera, committed to the President and the ministers who worked very hard, efficiently with us to reach this milestone agreement. I am really happy that the start of the new management went very smoothly. And that's a good sign. It shows that the people in Berbera and in Somaliland are really serious about developing their country. And I think this place is going to be a very important place for world trade. You have a big advantage against Dubai because every ship that is coming on the fast highway that connects west to east in front of you, shipping line come from the Mediterranean. wasiirka arrimaha dibadda ee Somaliland Dr. Saad Ali Shire oo isaguna halkaasi ka hadlay ayaa uga mahadnaqay hirgelinta heshiiskaasi madaxweynaha Somaliland iyo gudoomiyaha shirkadda DP World ee dhanka Imaaraadka. After a long and hard negotiations, a historic agreement was reached in May last year. The deal consists of two components: the expansion of the current port and the establishment of a free zone. We believe that the deal brings with it many benefits to both sides. It gives DP World a strategic port at crossroads of international trade and a gateway to landlocked East African countries. ugu dambeyntiina madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland Axmed Maxamed Maxamuud Silaanyo ayaa ka hadlay xiriirka Somaliland iyo Imaaraadka ee qotada dheer leh mashaariicda ay ka mid tahay heshiiska dekedda berbera, shirkadda Fly Dubai ee duulimaadyada ka samaysa Somaliland iyo saldhigga military ee ay xukuumaddiisu ka siisay Imaaraadka magaalada berbera iyo faa'iidooyinka Somaliland iyo shacabkeeda ugu jira. waxaanu yidhi marweyn casriyeynta iyo ballaarinta dekedda berbera waxay ahayd bartilmaameed barnaamijka waxqabadka xukuumadayda. waxaan aaminsanahay in maanta dariiq ugu habboon aynu ku dhisi karno dalkeena hooyo uu yahay inaynu la nimaadno siyaasad ganacsi oo furfuran taasoo inoo saari karta inaynu helo maalgashi caalami ah oo ku dhisan dano wadaag mutual interest. wadanka ka ahay dadaal dheer u gashay sidii maalgelin ku habboon loogu heli lahaa marsada caalamiga ee berbera ee badna haddii riyadaasi way rumowday. maalgashiga casriyeynta iyo ballaarinta dekedda berbera wuxuu wax weyn ka bedeli doonaa nolosha iyo dhaqaalaha bulshada Somaliland. waxaa kaloo uu dhiirigelin noqon doonaa mashaariic kaloo muhiim ah iyo shirkado caalami ah oo dalka maalgashiga ku sameeya. dhinaca kale maalgashigan waa mid fursado shaqo iyo shaqo u abuuri doona xooga dhalinyarada dihin ee shaqo la'aantu hayso. wuxuu kor u qaadayaa iskaashiga ganacsi aanu leenahay dalalka dariskaasi. sidoo kale wuxuu kor u qaadi doonaa xiriirka Jamhuuriyadda Soomaaliya iyo dalalka isu taga Imaaraadka Carabta
kaasoo ahaa mid soo jireena qarniyo badan awow ilaa ka awow oo Jamhuuriyadda Soomaaliya dowladda Isutaga Imaaraadka Carabtu wada galaan kuwaasoo ah kuwa amni iyo ganacsi sida saldhigga military iyo shirkadda diyaaradaha ee Fly Dubai oo si joogto ah u timaada maalin kasta Jamhuuriyadda Soomaaliland. heshiisyada kala duwan waxay sii xoojinayaan iskaashiga iyo wada lahaanshaha labada dal. xiriirka Soomaaliya iyo Isutaga Imaaraadka Carabtu ma aha mid imika bilaabmay laakiin waa mid muddo dheer soo jireen ahaa. waxaan xusuustaa yaraantaydii markaan magaalada Berbera ku baranayay Quraanka Kariimka ah inuu jiray xiriir ganacsi oo xooggan oo ku dhexeeyay labada dal. madaxweynaha Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo ayaa sidoo kalena waxa uu ka hadlay xiriirka Soomaaliland ay la leedahay wadamada jaarka aynu nahay ee ku yaala Geeska Afrika isagoo ka hadlayna waxa uu yiri mudane barweyn dowladda Soomaaliya waxay qadarin iyo ixtiraam weyn u haysaa dalalka dariska yihiin oo aan dana badan wadaagno. dalalka waxaanu nahay saaxiibo iyo jaar aad isugu dhow. waxaanu aaminsanahay in shucuubta ku dhaqan dalalka Geeska Afrika ay yihiin dad walaalo ah oo dana badan wadaaga. waxaanu aaminsanahay in horumarka iyo wanaagga midkood u soo kordha uu kalena u yahay sad iyo sarero. xukuumaddayda waxaan ka go'aanay inaynu xoojinno xiriirka iyo wada shaqaynta dalalka dariska iskana kaashano adkeynta amniga, la dagaalanka argagixisada, balcadbadeeda, tahriibka, faqriga, gaajada iyo ganacsiga sharci darrada. madaxweynaha Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo ayaa halkaasi shahaadooyin kala duwan ku guddoonsiiyay mas'uuliyiintii xukuumadda Soomaaliland u qaabilsanaa hirgelinta heshiiska dekedda Berbera ee shirkadda DP World ay la gashay xukuumaddu sida wasiirka wasaaradda madaxtooyada, maaliyadda, arrimaha dibadda, maarayaha dekedda, maayarka Berbera, barasaabka saaxil iyo sidoo kale xubno ka tirsan shirkadda DP World oo door ku lahaa heshiiskaasi. munaasabadan ballaaran ee lagu qabtay dekedda Berbera ayaa gunaanadu ahayd heshiiskii dekedda Berbera ku dhex maray shirkadda DP World ee waddanka Imaaraadka iyo Jamhuuriyadda Soomaaliland. Cabdikariim Saciid Saalax, telefishinka caalamiga ah ee Cable TV.